kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Hormaal Media Alaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwooda ugu waaweyn intaad muuqaalka daawanayso waxaa halkan kugu soo gudbin doonaa Kuuriyada Waqooyi oo wacd ay ku martay inay beegsan doonto xarimaha muhiimka ah Israa'iil iyo Mareykanka hadii ay joojin waayaan weerarada ay ku qaadayaan Iiraan macluumaadkii u dambeeyay ayaa halkan kugu la wadaagi doona waxaa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona Xuutiyiinta Yemen oo mar kale weerar culus ka fudiyay gudaha Israa'iil qasaarihii u dambeeyay ka dhashay ayaa halkan kugu la wadaagi doona Iiraan waxay dirtay hanjabaad culus oo kama dambeyn ah hadaba hanjabaadaasi maxay ku aadan tahay iyo xaaladda guud ee bariga dhexe ayaa halkan kugu la wadaagi doona hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan balalkana fursi ku soo gaaray muuqaalada kale xiga hadii subscribe inoo taayna muuqaalkeena share garay laakiin oo sar soo gaar asxaab badan oo ku maasanta daawashadaada Iiraan ayaa soo saartay hanjabaad culus oo ay ku sheegtay inay ku qaadi doonto talaabo military hadii ay sii kordhaan xiisada ka taagan bariga dhexe Tehran ayaa waxay si gaar ah ugu digtay inay beegsan karto xarumo muhiim ah oo ay ku tilmaantay inay halis ay ku yihiin amnigeeda iyo sidoo kale danaha ay gobolka ku leedahay halkaas ayaa waxa kamid ah xilli ay sii xoogeysanayaan iska horimaadyada u dhaxeeya Iiraan iyo sidoo kale dalalka oo ay kamid yihiin Israa'iil iyo xulafadooda Iiraan ayaa mar kale waxay bacad ay ku martay inay beegsan doonto xarimaha muhiimka ah Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka kuwaas oo ku yaala bariga dhexe iyo sidoo kale qaybo kamid ah wadamada Khaliijka Carabta hanjabaadda Iiraan ayaa waxay sidoo kale tilmaamaysaa in dalal iyo sidoo kale saldhigyo military ee ku yaala meel ka baxsan Iiraan ay ku jiraan kuwaas oo ku yaala gobolada Geeska Afrika iyo sidoo kale bariga dhexe waxayna noqon karaan bartilmaameedyo hadii xaaladdu ay sii xumaato arintan ayaa waxay kordhisay cabsida laga qabo in dagaalka uu si fudud ugu faafo qaybo kale oo hor leh iyadoo xaaladda bariga dhexe xilligan ay tahay mid aad u qasan qaybo badan oo kamid ah bariga dhexane ay dul heehaabayaan diyaaradaha dagaalka Iiraan iyadoo markii ay rawaan halkaas ay ka fuliyaan weeraro bartilmaameedyo ah kuwaas oo ay ku leeyihiin Israa'iil sidoo kale Mareykanka dhinaca kale falanqeeyaal ayaa waxay sheegeen in ay Iiraan u adeegsanayso hadaladan fariin siyaasadeed oo ay ku muujinayso awoodeeda iyo sidoo kale diyaar u ahaanshaheeda inay difaacdo danaha ay leedahay si kastaba ahaatee khubarada qaar ayaa waxa ay ka digayaan in hadalka ay ka soo yeeray Iiraan uu yahay mid aan la dhayalsan karin isla markaana xambaarsan digniin culus oo ka dhigan in Iiraan ay diyaar ay u tahay inay si laba jibaarto weerarada ay ka fulinayso bariga dhexe iyo sidoo kale qaybo kamid ah wadamada Khaliijka Carabta iyadoo Iiraan horay ay u baltirmaameysatay saldhigyo waaweyn oo Mareykanka uu ku lahaa Khaliijka Carabta sidoo kalena Iiraan dhowr gantaal ay ku dhufatay goobaha lagu kaydiyo shidaalka iyo sidoo kale warshadaha sifeeyay saliidda ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil wixii warar ku soo kordhay la xiriira mowduucaasi muuqaaladan xiga ay idinkugu soo gudbin doona dhinaca kalena Xuutiyiinta Yemen oo goor hore dagaalka ka socda bariga dhexe si toos ah ugu biirtay isla markaana ay ka dhinac dagaalamayso Iiraan ayaa waxay mar kale weerar culus oo gantaalo u adeegsatay ay ku qaaday magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil weeraradan ayaa inta badan lagu tilmaamay inay yihiin gantaalada ridada dhexe ama diyaarado aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska oo laga soo riday dhanka Yemen kuwaas oo bartilmaameedsaday magaalooyinka ama kaabayaasha muhiimka ah Israa'iil weerarkan ayaa waxa uu sii horin karaa xiisada dagaal ee ka taagan bariga dhexe maadaama Xuutiyiinta Yemen ay markaan si toos ah ugu soo biireen dagaalka isla markaana ay garabeysiinayaan Iiraan iyadoo horey Iiraan dagaalka ay ku ahayd mid kaligeeda isla markaana waxay heshay garbo ka barbar dagaalama isla markaana si toos ah weerar ugu qaada Israa'iil iyadoo horey Xuutiyiinta Yemen ay gantaalo ka badan 10 gantaal ay ku dhufteen magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil kuwaas oo qaarkood ku dhacay warshadaha sifeeyay saliidka iyo sidoo kale shidaalka waxaana halkaas ka dhashay dab aad u xoogan maadaama goobta uu gantaalku uu ku dhacay ay ahayd goob muhiim ah isla markaana lagu keediyo shidaalka laguna sifeeyay saliidda waxaana uu noqday qasaarahaas mid baaxad weyn leh iyadoo malaayiin dollar ah ee Israa'iil halkaas ay ku weysay Xuutiyiinta Yemen ayaa intaysan dagaalka ku soo biirin ka hor waxay dhowr jeer ay dirayeen hanjabaado culculus iyagoona ka digayay in Israa'iil iyo Mareykanka ay weerar aysan ku qaadin Iiraan amaba ay ka joojiyaan weerarada gaadmada ee Iiraan ay la bartilmaameedsanayaan
maadaama Israa'iil iyo Mareykankaba ay hadalka ka soo yeeray Xuutiyiinta Yemen aysan dhag jalaq u siinin. Yemen waxay si toos ah ugu soo biireen dagaalka iyadoona horeyba gantaalo ka badan 10 gantaal ay Israa'iil ay ku weerareen. Israa'iil wali wax faahfaahin ah kama aysan bixinin weeraradii ugu dambeeyay ee 12 saac ee la soo dhaafay ay Xuutiyiinta Yemen ay ku qaadeen magaalooyinkooda waaweyn, iyadoo Xuutiyiinta Yemen ay weeraradaas ay ku sheegeen in jab culus uu ka soo gaaray Israa'iil isla markaana halkaas ay ku gubeen goobo muhiim oo bartilmaameed u ahaa Xuutiyiinta Yemen isla markaana muhiim u ahaa Israa'iil. wixii xog ay ku soo kordho ee la xiriira dagaalka ama gantaalada Xuutiyiinta Yemen ay ku weerareen Israa'iil muuqaalkeena xiga ayaa idinkugu soo gudbin doona markana haddii aan ku soo gabagabayno. xiisada caalamiga ayaa sii kordhisay kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay si cad ah ay u muujisay hanjabaad ka dhan ah Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil iyadoona ku xirtay xaaladda dagaalka u dhaxaysa Iiraan iyo sidoo kale dhinacyada kale ee ku lugta leh. warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in Kuuriyada Waqooyi ay ka digtay in haddii aan si degdeg ah loo joojinin waxa ay ugu yeertay gardarada ka dhanka ee Iiraan ay qaadi doonto tallaabo militari oo toos ah. hanjabaadaasi waxay si gaar ah ugu tilmaantay beegsiga xarumo muhiim ah oo ka tirsan Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil. taasi waxay si weyn kor ugu qaaday heerka walwalka ee caalamiga. Kuuriyada Waqooyi ayaa muddo dheer lagu yaqaanay hadallo adag oo ay u jeediso reer galbeedka, balse hadalkan cusub waxa uu u muuqdaa mid ka sii daray maadaama ay ku hanjabtay in ay beegsan doonto xarimaha muhiimka u ah Israa'iil iyo Mareykanka. tan iyo markii uu bilowday dagaalka ee bariga dhexe oo ay gardaradiisa ay lahaayeen Israa'iil iyo Mareykanka oo 28 Febraayo ay si toos ah gantaalo ay ugu dhufteen magaalooyinka waaweyn ee Iiraan iyadoona halkaas uu ku geeriyooday hogaamiyihii ugu sareeyay ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei iyo sidoo kale saraakiil sarsare. Kuuriyada Waqooyi waxay direysay hanjabaado culus iyadoona ku baaqaysay in mar walba dagaalkan la soo abjaro iyadoona dagaalka uu galay muddo bil iyo ka badan waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo baaxad leh isugu jira mid nafeed iyo sidoo kale mid hantiyadeed intuba. Kuuriyada Waqooyi hanjabaadan culus ka soo yeertay ayaa waxaa loo arkaa inay sii kordhin karto xiisada ka taagan bariga dhexe iyadoona Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka xilligan ay doonayaan in dagaalka ay qaboojiyaan balse Iiraan ay arrimahaasi aysan diyaar u ahayn. Kuuriyada Waqooyi waxay ku hanjabtay in Iiraan ay ka difaaci doonto ama ay ku taageeri doonto hubkeeda nuclear-ka iyo sidoo kale ciidankeeda militariga haddii Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ay joojiyaan weerarada ay ku qaadayaan Iiraan, balse markaan waxa ay ku hanjabtay in iyadu ay si toos ah u bartilmaameedsan doonto xarimaha muhiimka ah ee Israa'iil iyo Mareykanka ee ku yaala bariga dhexe sidoo kale wadamada Khaliijka Carabta. awoodda militariga ee Kuuriyada Waqooyi ayaa wali ah mid laga cabsi qabo iyadoona ay haystaan gantaal ballistic ah oo gaari kara fogaan dheer iyo sidoo kale awoodaha cirka oo ay awood u leeyihiin in diyaarado dagaal ay sida roobka u durushay karaan gantaaladooda. guud ahaan muuqaalka halkan ayaan ku soo gabagabaynaynaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana furasay ku soo gaaraa muuqaalada kale xiga. haddii subscribe inoo tahayna muuqaalkan oo share garay laakiin oo sar soo gaar asxaab badan oo ku maasanta